بسم الله الرحمن الرحيم. شعبك الصوماليات ملكست أي جوان وحن كسلامي صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إن كحض له لو دعضو ومنا ما أنت دعضي منا حلي أي دعضي ومدن إلا دول استاجو دعضي كوات وتيح الورجينتا ما أنت ذلك أنا كدعضي وحلا سعتان إن حلكي رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية maanta isku wareejiyeen si hayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ah mid dastuurka iyo sharciga intaba khilaafsan sharci ku tumashadaas iyo dastuur jabintaasna cidda odayga uga ah dalkan uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaad ogtihiin in ra'iisul wasaarihii hore xilka laga tuuray oo codsaday inuu xil wareejinta asaga sameeyo oo si rasmi ah codsi u dirsaday waxaad ogtihiin dastuurkeena ku meel gaarka ah madaxweynaha wuxuu ku leeyahay waa inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha ee uguma taalo qodobna kuma qorna inuu ku meel gaar ama si haye xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo saas daraadeed si haynta xilka ra'iisul wasaaraha waxay ahayd mid sharci darro ah dastuurkana lagu jabiyay xilka suuristii ra'iisul wasaarahana waxay ahayd mid sharci darro ah oo dastuurka ayadana lagu jabiyay in ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray oo dalbado xil wareejin loona diido ayadana waa mid sharciga iyo dastuurka lagu jabiyay taasoo ay markhaati ka yihiin hay-adihii kale ee federaalka sida baarlamaanka ama garsoorkii intaba ay ka mashxaradayaan oo ay ka allaasayaan waa ayaan darro dalkeena soo wajahday waxaase wax lagu cibro qaato mudan in ra'iisul wasaaraha xilka laga tuuray oo qayb ka ahaa sharci jabintaas iyo dastuur ku tumashadaas asagoo ku dhisay siyaasaddiisa in asagii madaxweynaha ay yihiin laba qofood oo shirko ah ee aysan ahayn laba xafiis ama laba hay-adood oo laanta fulinta ka wada tirsan aan ahayn caaqibada ay leedahay markaad ku shaqayso inaad qof daacad u tahay iyo in markaad hay-adaha dawliga ama dastuurka aad daacad u tahay farqiga u dhexeeya natiijadeedii maanta ayaan dul taaganahay wuxuu ra'iisul wasaaraha qayb ka ahaa ku tumashada xuquuqda muwaadinka oo ay ugu horeyso dhiibistii halgamaa qalbi dhagax wuxuu qayb ka ahaa weerarkii ka dhacay xarunta aan kala soo hadlayo xisbiga wadajir wuxuu qayb ka ahaa xilka tuuristii sharci darrada ahayd ee guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu qayb ka ahaa xanibaadii safar ee lagu sameeyey labadii madaxweyne ee dalkan isaga dambeeyey sanadihii dambe wuxuu qayb ka ahaa cunaqabatayntii lagu sameeyey Jubbaland wuxuu qayb ka ahaa waxyaalo badan oo sharci darro ah uu ka aamusnaa wuxuu uga aamusnaa waxay ahayd inuu ilaalinayay dareenka madaxweynaha iyo rabitaanka madaxweynaha ee ma ahayn inuu u dhaqmaayey institution ama hay-ad dawladeed qof madax ka ah oo ka madax bannaan madaxweynaha waxaan ku celinayaa cid kastoo ku riyootaa inay ku shaqayso rabitaan shakhsi ama xafiis dowladeed oo qaran ugu adeegto rabitaan shakhsi natiijadeeda maanta ayay haysaa cibro qaadashadaas waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaali ah oo dalbaya xukunka dalka ama ilaahay calaf ugu daro inuu xukunka dalka qabto waxayna ka bilaabataa ra'iisul wasaaraha maanta xilka la wareegay waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo dastuurka dalka waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo inuu xafiis madax bannaan yahay oo laanta fulinta ka tirsan waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo dastuurka iyo dowladnimada sida ay tahay cibro qaadasho ku filanna maanta wuu u haystaa dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan waxaan taaganahay kala beer taariikheed oo raadeynaya masiirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee nabadda dalkeena intaba waa inaad kala ogaataan cidda ka shaqeynaysa nabadda iyo dhismaha dowladnimada iyo cidda ka shaqeynaysa burburinta dalka iyo sharci darrada iyo ku tumashada dastuurka waa inaan kala ogaanaa shalay xisbiga wadajir daana waxaan ku celcelinaynay shakhsiyaad ma aha dowladnimadu waa institution ama waa hay-ado wada shaqeeya ha noqdaan shakhsiyaad isjecel ma aha dowladnimada qodobka labaad u gudbaya waxa waaye hadalkii xalay iyo dood wadaagii madaxweynaha oo la yeeshay qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeed sidaad ogtihiin madaxweynaha su'aalo taagan oo xaaladda dalka ah ayuu dhammaantood uga baxay jawaabteeda ma hayo ma ogi weydiiya
gole hebel iyo shakhsi hebel. madaxweynaha 3 sano iyo bar ayuu naga dhuuntay oo aan ka weynay dood fagaaro inuu yimaado golayaasha dadka Soomaaliyeed oo kula hadlo shacabka oo la hadlo yaan ka weynay. ayaan daradii ugu weyneed waxay tahay xalay markii uu hor yimid oo ugu horeysay oo shacab Soomaaliyeed soo hor fadhiistay oo dood furan la galay in asagoo taagan oo shacabkii ka dhuuntay maadaama uu su'aalahoodii yiri ma garanayo kamana jawaabi karo. Soomaaliyeed kuwa badan oo madaxweynaha la mid ah ayaa saf ugu jira raadinta xilka sare ee dalka. kuwa badan ayaa u gabisan waxyaalaha ay keentay siyaasad loo soo dhuunto oo hoteelada loogu xiran yahay oo daqiiqada ugu dambaysa loo soo dego oo aan la aqoonin aragtidaada iyo halka u jeedo iyo talada dalka halka ay geynaysana waa noocaas masiirkeeda midda ay ku dhamaanayso. saas daraadeed aan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay kala bartaan siyaasiyiintooda, inay kala bartaan sidii uu yiri madaxweynihii hore ee Aadan Cabdulle Cismaan Soomaaliyeed ragiina kala barta, in la kala barto cidda marxaladaha adag dalka dhaafi karta iyo cidda kaliya ay ka tahay xil raadi laakiin hoggaan dal aanan haynin inaan kala barno ay u baahannahay. waxaan rabay labadaas arrin inaan maanta dul istaago. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.